salaamantiin asxaabta kusoo dhawaada barnaamijkeena one by one oonu kusoo qaadano wararka iyo warbiximii ugu dambeeyey. waxaan eegi doonaa kooxda Barcelona oo doonaysa ciyaartoygii bedelka u noqon lahaa kabtanka kooxda ee Sergio Busquets, xidiga kooxda Real Madrid oo la sheegay inay tartan ugu jiraan kooxaha Manchester City iyo sidoo kale PSG, iyo wararka ugu dambeeyey ee suuqa kala iibsiga kooxaha horyaalka Ingiriiska ee Premier League iyo sidoo kale kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub. haddii aad ka heshid muuqaalka fadlan like, subscribe na dheh channelka si aad ula socotid muuqaalada dambe. ugu horeyntii aynu ku bilowno ciyaartoyga N'Golo Kante oo dhammaanaya heshiiska uu kula jiro kooxda Chelsea dhamaadka xilli ciyaareedkan. sidoo kale ciyaartoygan la filayay ama ay doonaysay sidoo kalena ay isha ku haysay kooxda Barcelona oo ay doonaysay inuu bedel u noqdo kabtanka kooxda Barcelona ee Sergio Busquets, kaasoo la filayay inuu ka tegi doono kooxda Barcelona. ayaa hadda waxaa la sheegay ciyaartoyga N'Golo Kante inuu hadda qaatay go-aankiisii ahaa. haddaba ciyaartoyga N'Golo Kante waxaa la sheegay ciyaartoygan haddii aanu heshiisko dhan u sameyn kooxiisa Chelsea inaanu kasii qayb qaadan doonin ama aanu kasii ciyaari doonin ama aanu ciyaari doonin koox kale oo ka ciyaarto horyaalka Ingiriiska ee Premier League oo aan hayn kooxda Chelsea. haddaba kooxda Barcelona oo doonaysay ciyaartoygan ayaa waxaa la sheegay inay dalab u gudbiyeen ciyaartoygan, inkastoo hadda ay socdaan wadahadalla u dhexeeya ciyaartoyga N'Golo Kante iyo sidoo kale kooxda Chelsea kaasoo ku saabsan ciyaartoyga N'Golo Kante inuu heshiisko dhan u sameeyo kooxda Chelsea. sidoo kale iyaduna waxaa jiray warar sheegay ciyaartoygan inuu heshiisko dhan u sameyn doono kooxda Chelsea toddobaadyada soo socda, kaasoo uu saxiixi doono heshiis ah ilaa sanada 2026. sidoo kale iyaguna waxaa jiray ciyaartoyga N'Golo Kante in la sheegay inuu ciyaartoygani marka hore doonayay inuu ku biiro ama uu dhageysto dalabka uga imaanaya kooxda Barcelona, kooxdan oo doonaysa inay la wareegto sidoo kale ciyaartoygan uu noqdo bedel ciyaartoyga Sergio Busquets ee u ciyaara kooxda Barcelona, kaasoo la filayo inuu ka tegi doono kooxda Barcelona dhamaadka xilli ciyaareedkan. haddaba inkastoo ay jireen kooxda Barcelona in la sheegay Barcelona inaanay ciyaartoy lasoo wareegi doonin bisha January maadaama xaaladda dhaqaale ee kooxda ay aad u liidato, ay ku adkaan doonto kooxda Barcelona inay lasoo wareegto ciyaartoy. balse ciyaartoyga N'Golo Kante waa uu ka duwan yahay ciyaartoygan oo dhamaadka xilli ciyaareedkan ayay kooxdu lasoo wareegi doonta oo hadda wadahadal ay lasii furi doonta ciyaartoygan. oo ciyaartoygu marka uu golo 6 bilood ee ugu dambeeyay heshiiskiisa waxuu ciyaartoygaasi ikhtiyaar u leeyahay ama uu xor u yahay inuu kooxda allaale iyo kooxdu doono wadahadal la furo, taasoo macnaheedu yahay N'Golo Kante heshiiskiisu wuxuu dhammaanayaa dhamaadka xilli ciyaareedkan, wuxuuna hadda wadahadal la furo kooxda Barcelona ama uu awood u leeyahay inuu wadahadal lasii furo. haddaba Barcelona haddii hadda wadahadal ay la furto ciyaartoyga N'Golo Kante waxay kooxda awood u leedahay inay lasoo wareegto markuu dhammaado heshiiska uu kula jiro kooxda Chelsea sanada 2023 ama dhamaadka xilli ciyaareedkan. waa haddii aanu ciyaartoygani heshiisko dhan u sameyn kooxda Chelsea, oo kooxda Chelsea la sheegay hadda inay wadahadal kula jirto ciyaartoyga N'Golo Kante oo ay doonayso inuu heshiisko dhan u sameeyo. sidoo kale la sheegay in toddobaadyada soo socda uu ciyaartoygani go-aankiisa qaadan doono una saxiixi doono kooxda Chelsea heshiis ah ilaa sanada 2026 ama uu ka tegi doono kooxda Chelsea oo uu ku biiri doono koox ka mid ah kooxaha aan ka ciyaarin horyaalka Ingiriiska ee Premier League. sidoo kale ciyaartoyda ay isha ku hayso kooxda Barcelona oo ay doonayaan inuu bedelka u noqdo kabtanka kooxda ee Sergio Busquets ayaa waxaa ka mid ah ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara xulka qaranka Portugiiska iyo sidoo kale kooxda Wolverhampton ee Ruben Neves. haddaba kooxda Barcelona markii ay doonaysay ama ay miiska soo saareen mas-uuliyiinta kooxda Barcelona ciyaartoygii bedelka u noqon lahaa ciyaartoyga Sergio Busquets ayaa waxay u kala baxeen 3 go-aan, kaasoo ay kala qaateen go-aan uu qaatay madaxweynaha kooxda Barcelona ee Juan Laporta, halka go-aan kale uu doonayay tababare Xavi iyo sidoo kale Matheus Allemani oo ah agaasimaha kooxda Barcelona oo isaguna go-aan qaatay. haddaba waxay kala doorteen ama mid walba ciyaartoy ayuu doortay, oo ciyaartoyga Zubimendi ee khadka dhexe uga ciyaara waxaa aad u doonayay tababaraha kooxda Barcelona ee Xavi, kaasoo sheegay ciyaartoygan inuu yahay ciyaartoyga ugu dhow ee bedeli karaya ama sidoo kale noqon karaya bedelka ciyaartoyga Sergio Busquets. sidoo kale halka uu madaxweynaha Juan Laporta la sheegay inuu ku qanacsan yahay ciyaartoyga N'Golo Kante, aaminsan yahayna ciyaartoygan inuu noqon karayo ciyaartoyga bedel lahaa Sergio Busquets, halka Matheus Allemani oo agaasimaha kooxda Barcelona oo isagoo aaminsan yahay ciyaartoyga Ruben Neves oo ciyaara kooxda Wolverhampton. haddaba ciyaartoygan ayaa la sheegay inuu ku qanacsan yahay sidoo kale uu rajeynayo ciyaaritaankiisa kooxda Barcelona, balse kooxda Barcelona haddii ay doonayso inay la soo wareegto ciyaartoyga Ruben Neves looga baahan yahay kooxdu inay ciyaartoy badan ama ciyaartoy iibiso, inkastoo ciyaartoyda Pedri iyo Gavi ay ka mid yihiin ciyaartoyda lama taabtaanka ah. haddana waxaa la filayaa kooxda Barcelona haddii ay doonayso inay mid ahaan iibin doonto ama ay fasixi doonto ciyaartoyda kale ah Frankiise iyo sidoo kale Nico. ciyaartoyga Ruben Neves ayaa waxa uu diiday dalabyo uga yimaaday kooxdiisa Wolverhampton kuwaasoo ku saabsanay heshiis kordhin. ciyaartoygan ayaa la sheegay inuu sugayo dalab ama heshiis ay usoo bandhigi doonto kooxda Barcelona, inkastoo ciyaartoygan uu qiimihiisu gaadhayo 40 ilaa 50 milyan oo euro. haddana kooxda Barcelona waxay isku dayi doontaa ciyaartoygan inay lasoo wareegto, oo haddii ay ku fashilanto kooxda Barcelona lasoo wareegida ciyaartoyga N'Golo Kante oo la filayo inuu heshiis kordhin u sameyn doono kooxdiisa Chelsea.
sidoo kale ciyaartooyga dambeedka midax uga ciyaara kooxda Real Madrid ee Ferland Mendy ayaa la sheegay inay u tartamayaan ama ay ku hayaan kooxaha PSG iyo sidoo kale Manchester City. ciyaartooygan heshiis kordhintiisa oo heshiiskiisu dhamaanaya sanada 2025 ayaa hadda waxaa la sheegay ciyaartooygan inaanu ku jirin ama aanay wax niyad ah u hayn mas'uuliyiinta kooxda Real Madrid in heshiis kordhin u sameeyaan ciyaartooyga Ferland Mendy. kooxda Manchester City iyo PSG ayaa la sheegay inay ku hayaan ciyaartooygan maadaama ciyaartooygan uu ka mid yahay ciyaartooyda ugu fiican ee ka ciyaarada meedka bidix. sidoo kale ciyaartooygan uu dhamaanaya heshiiska uu kula jiro kooxda Real Madrid bisha June ee sanada 2025 aanay wax niyad ah u hayn mas'uuliyiinta kooxda Real Madrid inay u sameeyaan heshiis kordhin ciyaartooyga Ferland Mendy. sidoo kalena hadda ay soo baxeen toddobaadyadii ugu dambeeyay warar sheegayay in mas'uuliyiinta kooxda Real Madrid qorsheynayaan inay la soo wareegaan ciyaartooyga dambeedka midax uga ciyaara ama daafaca bidix uga ciyaara kooxda Bayern ee Alphonso Davies xagaaga ama sanada 2024. haddaba kooxda Real Madrid ayaa waxay dhageysan doontaa talabyada laga soo gudbiyay ciyaartooyga Ferland Mendy. ciyaartooygan oo ay filayo kooxda Real Madrid ama kooxda Real Madrid ay sanadii 2019 50 milyan oo euro kagala soo wareegtay kooxda Olympique Lyon ee ka ciyaarta wadanka Faransiiska. haddaba kooxda PSG iyo sidoo kale Manchester City oo isku dayay inay ku guuleystaan koobka Champions League sidoo kalena xoojinaya kooxahooda ayaa waxaa la sheegay kooxahan inay doonayaan ciyaartooygan inay la wareegaan sidoo kalena ay isha ku hayaan xaalkiisa oo suuragal ay tahay tababare Guardiola iyo sidoo kale Galtier inay la soo wareegaan ciyaartooyga Ferland Mendy. haddaba Real Madrid ayaa waxay isku diyaarinaysaa haddii ciyaartooyga Ferland Mendy uu ka tago kooxda Real Madrid sidoo kale kooxda ay ku fashilanto la soo wareegida ciyaartooyga Alphonso Davies oo ay qorsheynayaan mas'uuliyiinta kooxda inay la soo wareegaan. waxaa jira laba ciyaartooy oo ay kooxda doonayso ama laba ciyaartooy oo kooxda u diyaarsan waxayna kala yihiin ciyaartooyga Ferran Garcia iyo sidoo kale ciyaartooyga Miguel Gutierrez. haddaba labadan ciyaartooy ayaa waxay ka mid yihiin labadii ciyaartooy ee ka baxay ama ka soo baxay akademiyada kooxda Real Madrid. sidoo kale ciyaartooydan waxa uu kala ciyaaraan kooxaha Rayo Vallecano kooxda Girona. haddaba kooxda Real Madrid waxay awood u leedahay in ciyaartooyga Ferran Garcia kula soo wareegto 10 milyan oo euro sidoo kalena kooxdu waxay awood u leedahay ciyaartooyga Miguel Gutierrez haddii ay iibiso kooxda Girona in 60% qiimaha ciyaartooyga lagu iibinayo ay yeelato kooxda Real Madrid sidoo kalena ciyaartooygan ay soo ceshan doonto. halka ay kooxda Arsenal isku day doonto inay soo xoojiso talabaadka ay ka gudbinayso ciyaartooyga iyo sidoo kale weeraryahanka khadka weerarka uga ciyaara xulka qaranka Ukraine iyo sidoo kale kooxda Shakhtar Donetsk ee Mikhail Modric. ciyaartooygan oo markii hore ay dhowr dalab ka gudbisay kooxda Arsenal ayaa waxaa jiray inay diiday kooxda Shakhtar Donetsk dalabkan inkastoo dalabka ugu dambeeyay uu gaadhay ama lagu qiyaasay 62 milyan oo euro. haddana iyadoo taasi ay jirto waxaa wada hadalka soo galay kooxda Chelsea oo doonaysa inay ka hor qaado ciyaartooygan kooxda Arsenal sidoo kalena diyaar u leh ciyaartooygan inay qiimaha u sareeya ka bixiso. haddaba mas'uuliyiinta kooxda Shakhtar Donetsk ayaa waxay doonayaan in ciyaartooyga Mikhail Modric ay ka iibiyaan qiimo lagu qiyaasay 90 ilaa 80 milyan oo euro. ciyaartooyga Mikhail Modric oo kamid ah ciyaartooyda ugu fiican sidoo kale ciyaartooygan waxa uu ku guuleystay ciyaartooyga ugu fiicnaa xilli ciyaareedkan horyaalka wadanka Ukraine. ciyaartooyga Mikhail Modric ayaa waxa uu u ciyaaray kooxda Shakhtar Donetsk xilli ciyaareedkii la soo dhaafay sidoo kale ciyaartooygani waxa uu ka mid yahay ciyaartooyda ugu fiicneed ama kooxda Shakhtar Donetsk ciyaartooygeeda koobaad ama xidigeeda koobaad. arrinkaas oo keenay inay adkaato iibinta ciyaartooygan oo ay doonayaan mas'uuliyiinta kooxdu inay ku iibiyaan qiimo gaadhaya 85 milyan oo euro. haddaba ciyaartooygan ayaa waxa uu doonaya inuu ku biro kooxda Arsenal sidoo kale ciyaartooygan waxaa jiray kulamo badan oo ciyaarisay kooxda Arsenal inuu soo dhigay bartiisa Instagram-ka taasoo macnaheedu yahay ciyaartooygan inuu doonayo ku biiritaanka kooxda Arsenal uu kana mid noqdo ciyaartooyda u ciyaara kooxda Arsenal xilli ciyaareedkan ama xilli ciyaareedka dambe. dhinaca kale kooxda Manchester United oo baadi-goob ugu jirtay weeraryahanka ama ciyaartooygii bedel u noqon lahaa ciyaartooygii ka tegay kooxda Cristiano Ronaldo sidoo kalena kooxda ku fashilantay ciyaartooyda ay isku dayday haddii ay noqoto ciyaartooyga Gakpo iyo sidoo kale ciyaartooy kale ayaa hadda waxaa la sheegay kooxda Manchester United inay diyaar u tahay la soo wareegida ciyaartooyga khadka weerarka uga ciyaara xulka qaranka Faransiiska iyo sidoo kale kooxda Frankfurt ee Kolo Muani. ciyaartooygan ayay doonaysaa kooxda Manchester United inuu noqdo ciyaartooygii bedelka u noqon lahaa ciyaartooygii hore ee Cristiano Ronaldo. Kolo Muani oo kamid ah ciyaartooydii u ciyaaray xulka qaranka Faransiiska sidoo kale ciyaartooygan loo yeedhay inkastoo ciyaartooygan aanu markii hore ku jirin liiska ciyaartooyda loo xushay xulka qaranka Faransiiska balse ciyaartooygan kadib markii uu xulkii qaranka Faransiiska tababarkiisa dhaawac kusoo gaadhay ciyaartooygii Christopher Nkunku ayaa loo wacay. haddaba Kolo Muani ayaa waxaa la sheegay inay sidoo kale isha ku hayaan ama ay doonayaan kooxaha ka ciyaara horyaalka wadanka Bundesliga ee kala ah Borussia Dortmund iyo sidoo kale Bayern balse sidoo kale kooxdiisa uu ciyaaro ee Eintracht Frankfurt
ciyaartooygan waxaa la sheegay inay isku day doonto inay ku iibiso qiimo lagu qiyaasay ama gaadhaya 80 milyan oo euro, balse kooxda Manchester United ayaa waxay diyaar ula tahay in ciyaartooygan ay ka bixiso ama qiimaha ay ku doonayso uu gaadhayo 53 milyan oo euro, waxaana ku adkaan doonta kooxda Manchester United inay kula soo wareegto ciyaartooygan qiimahaas maadaama ciyaartooygan uu xagaagi la soo dhaafay heshiis cusub oo 5 sano ah u saxeexay kooxdiisa cusub ee Frankfurt. sidoo kale waxaa la sheegay ciyaartooygan inaan wax fikrad ah ama aanu doonin inuu ku biiro ama uu ka tago kooxdiisa Frankfurt maadaama kooxda Frankfurt ay ka qayb qaadanayso ama ay ciyaarayso horyaal ka mid ah horyaalada Yurub haddii ay noqoto koobka Champions League iyo sidoo kale koobka Europe League. ugu dambeyntii kooxda Bayern ayaa la soo wareegtay ciyaartooygii hore u ciyaari jiray kooxaha Manchester United iyo sidoo kale Ajax ee Danny Blind. ciyaartooygan kadib markuu dhamaaday heshiiskii uu kula jiray kooxda Ajax ayaa ciyaartooygan waxa uu ku biiray kooxda Bayern ilaa dhamaadka xilli ciyaareedkan. haddaba ciyaartooygan ayaa waxa uu soo ciyaaray kooxaha Ajax sidoo kale waxa uu ciyaaray horyaalka Ingiriiska ee Premier League kooxda Manchester United. ciyaartooygan mar kale waxa uu kusoo laabtay kooxda Ajax balse heshiiskii kadib markuu kula jiray kooxda Ajax uu dhamaaday ciyaartooygan waxa uu kusoo biiray ama kooxda Bayern ayaa la soo wareegtay ciyaartooygan oo aan la filin ama sidoo kale aanay jirin markii hore wax wada hadal ah iyo sidoo kale wax la sheegay ama warar ciyaartooyga lala xiriirinayo kooxda Bayern. haddana kooxda Bayern ayaa si la yaab leh ciyaartooygan ula soo wareegtay waxaana la filayaa ciyaartooygan inuu ciyaari doono ilaa dhamaadka xilli ciyaareedkan.